السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي waa salaamaya meel walba joogtaan. Channelka daawaneysaan waa Bashir Fakis. Channelka haddaad ku cusub tahay insha Allah subscribe noo saar. Haddaa horey u joogteen insha Allah waxaan rajeynayaa in aad caafimaad qabtid baan rajeynayaa. Insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo. Dhalinyaro badan baa waxay soo weydiisay sidee lagu aqoonsan karaa oo kale zoomka oo kale. Matalan oo kale waxay dhaheen suuq baa hadii waxaa la dhahayaa zoomkaas oo test ku sameynaya. Zoomku maxaa loola jeedaa macnaha zoomkaas. Dhalinyaro badan baa soo weydiisay insha Allah waxa weeye caawan waxaan rabaa halkan aan fahansiiyo insha Allah waxa weeye waxa zoomka loola jeedo. Xilliga ay macquulka tahay waxa weeye zoomka inaad iska eegtid. Mar walba lama rabo suuqan wuxuu sameynayaa 150 zoom buu sameynayaa. In kaliya aad ku khafiiftid zoomkii oo kale lafteeda wareer bay keenaysaa waana laga fiican yahay. Marka waxaa loo baahan yahay suuq markii aad technical analysis kaaga caadiga aad soo saartay suuqii meel walba aad ka fiirisay meeshuu aadi kara aad price action aad ka fiirisay oo kale. Kadib zoomka aad is leedahay waxa weeye suuqa magaranaysaa intii uu ka yeelan karaa. Ma zoomka aad is leedahay haddaa buy u geli sidoo kale. Zoomka aad is leedahay sellersku aad bay u haysteen oo kale oo aad iska ilaalin kadib oo kale. waa inaad iska eegtaa adii meelaha waxa weeye loo baahan yahay inaad iska eegtid oo kale baad u baahan tahay waxa weeye inaad ogaatid insha Allah waxa weeye halkan ayaan kuusoo gudbin doonaa caawa. Marka insha Allah sidee lagu aqoonsadaa zoomkuna waxa weeye sidiisa waa maxay suuqa horta sidiisaba waxa weeye suuqu wuxuu samaystaa sida caadiga uu ku socdo waa impulsive correction impulsive ku socdaa. Marka inta uu ku socdo suuqu meeshii uu impulsive koowaad uu ka sameeyay waa zone uu ka soo dhaqaaqay. Waxaa laga yaabaa meel inay tahay horey suuqu waxa weeye ugu laalaabtay. Meesha uu ka soo laabanayana waxay noqonaysaa zone bay ku noqonaysaa. Meesha uu ka laabtay suuquna waxa weeye waa zone. Sideedaba markii la fiiriyo suuqa. Meesha kale oo halkaas uu ka laabanayana waa zone. Marka as bigger picture markaa fiirisid meesha kale uu ka soo laabtayna waxaa laga yaabaa inay noqoto zone oo waxa weeye suuqa lagu hayo in suuqa waxa weeye meesha lagu hayo ta laga soo laabto test lagu sameeyo kadibna ay noqoto double top kadibna suuqa la soo daadiyo meesha suuqa uu ku laabto kadib zoomkan ayadana la soo jibiyo kadib test lagu sameeyo suuq meeshaas uu test ka sameeyay zone labaad uu ka abuurto isaga uu ku laabto kadib soo daato zoomkan asna uu jibiyo waxa weeye inuu ku laabto suuqu maanta dhan wuxuu sameysanayaa zoomka lagu sheegay sideedaba waa higher iyo higher lowerkaas waa levels weeye suuqu ama zone uu suuqu sameysanayo. Laakiin sida caadiga markaa fiirisid suuqa waxaa laga yaabaa kaliya meeshan kaliya in uu waxa weeye suuqu marar badan ku laabto. Suuqu uu buy ka aado ku soo laabto mar labaad buy ka aado ku soo laabto zoomkii meeshaas zone ay noqoto kan mar labaad ka dhaqaaqo meeshan waxa weeye laga celiyo ku laabto la jibiyo halkan zone ay noqoto ka tago mar labaad zone ay noqoto ka soo laabto soo dhaco zoomkan waxa weeye mar labaad laga soo test gareeyo. Marka suuqu wuxuu sameysanayaa marar badan zones badan buu sameysanayaa laakiin sida caadiga ah marka waa inaad xisaabisaa suuqu impulsive uu sameeyay correction buu sameeyay halka waa inay zone kale inay zone ku tahay markuu impulsive sameeyo zonekan uu suuqu jibiyay wuxuu sameynayaa test buu sameynayaa kadib uu dhaqaaqayaa uu laabanayaa wali zonekii waa la joogaa oo 4 hour zonekii oo kale ama oo daily zonekii kadib kan uu jibiyay test uu sameeyo haddana soo jibiyo oo kale ku laabto zone cusub oo abuurto ka soo daato suuq marka zoneka lagu sheegayo sideeda horta zonku waxa weeye waa intaas lower iyo lower higher kaas waxa ku dhex jira zone ayadoo ay saa tahay haddana waxa weeye suuq ma garanaysaa wuxuu samaystaa zonen inuu kale weekly zone oo kale laga yaabo suuq inuu samaysto meel hadda ka hor uu ka soo daatay oo kale uu waqti badan ka hor ka soo daatay inuu mar labaad ku soo laabto ka soo dhaco oo kale mar labaad ku soo laabto oo kale ka soo dhaco ana meesha ay noqoto waxa weeye zone ay noqoto. Laakiin zoomku waxa weeye muhiimadu wuxuu ku sameynayaa markii aad analysis kaaga kalena waxa weeye aad ku darsatid oo kale aad saxid oo kale. Mararka qaarkood waxa weeye zoomku kaliya maaha impulsive ka kaliya iyo correction ka kaliya maahane waa inaad mararka qaarkood waxa weeye adoo fiirinayo waxa weeye dhiman suuqu wuxuu samaystaa demand zone iyo supply zone. Demand zone waxa weeye markuu buy-ga suuqu aadayo supply-guna waxa weeye markuu sell ka soo aadayo sellers ay soo galayaan. marka qaarkood waxa dhacda suuq inuu impulse samaysto candle waxa weeye rejection uu samaysto candlada rejectionka markuu samaysto
waxaan ka wadaa impulsiga dhexdiisa buu wuxuu samaysanayaa suuq kan la yar oo rejection buy buu aadayaa hadhow suuqu wuxuu soo gelayaa correction buu soo gelayaa correctionka markuu soo galo wuxuu ka laabanayaa candlekii markii hore rejectionka sameeyey oo hal candle ahaa ka laabanayaa meesha waxay ku tahay demand zone suuq markaa buy baa loo kaxaynayaa waa lagu soo laabanayaa meesha waxay noqonaysaa zone aad u adag bay noqonaysaa 4 hour zone ama daily zone meel walba waa laga heli karaa ilaa 5 minutes ilaa 15 minutes baa laga heli karaa kadib suuqu saabay ku aad levelkan buu hadana jiminayaa levelkan buu haway soo retest garanayaa suuqu mar labaad ku soo laabanayaa kadib buy buu hadana aadaya wuxuu yar soo laabanaya soo meelahan waxa way kula laabanaya zone cusub buu hadana sameysanayaa suuqu marka kaliya lower ka iyo lower higher ka kaliya ina fiirsin ma sidoo kale waxa jira demand zone ama supply zone zero qarsoon baa jira oo hadda meeshan oo kale halkan oo kale waxay noqon kartaa demand zone bay noqon kartaa meel waxa way demand zone haddana saas oo ay tahay ma ahan meel suuqu higher lower higher u ka sameeyay waa level yar ah levelka yarka waxa laga yaabaa marka lagu soo laabto in hadhow waxa way si xawliya buy looga aado sida hadda ka dhacday oo kale halkaan oo kale fiiri suuqu imbalance ku jiray halkan dal oo rejection bas sameeyay hadhow maxaa dhacay fiiri meeshii waxay noqotay zone bay isku bedeshay meeshii waa buy baa laga aaday waa lagu soo laabtay waa laga tegay waa lagu soo laabtay buy baa hadana laga aaday isla buyga suuq uu sameynayo buyga suuq sameynayo wuxuu ka sameysanayaa hadana levels marka levelku supply and demand zone ku ma dhamaado waa tiradii uu ka batay waxa way suuq waxa ka helisa 4 hour ka 1 hour ka 15 minute ka maanta dhan waxa way waa ka buuxa laakiin midka la raba in aad ka faa'iideysto waa kee midka aad loo baahan yahay waxa way inaad gashid oo ka faa'iideysto waa kee way su'aasha su'aalaheena koowaad waxaan ku qaadanaynaa golli insha Allah golli ma fiirinaynaa golli janiskaas see u qaadan lahayd sidoo kalena supply and demand ka oo iska fiirinaya ama levels kay levels ka oo iska eegaya seeba waxa way lacagta ku qaadan lahayd mar walba horta waxa fiican lacag marka aan la isgarinayna weekly time frame ka soo bilowday weekly time frame waxay ka saacidaysaa lacagta inay heshid sonkii saxda ah inay heshid hadda lacagtan waxa ujeedaan in ay tahay meeshaas meeshii koreysay oo supply ahayd iyo meeshii u hooseyso oo buy ka aaday oo ahayd demand-iga marka inta u dhaxaysa suuqu wuxuu sameysanayaa 1000 mar iyo 200 mar buu sameysanayaa supply and demand yar u sameysanayaa taa low time frame ka atigtay buy iyo sell kan waa supply and demand buu sameysanayaa suuq maanta oo dhan marka inta marka heshid daily time frame ka tagaysa analysis kaaga caadiga ah soo sameysanaysaa marka mid dadku wareeraan waxa weeye waxaa laga yaabaa intay halkan iska saartaan supply and demand zone wuxuu sugayaa inta meesha lagu soo laabanayo laakiin price action kiisi kale iyo technical analysis kale iyo hawlihiisa kale waxa uu ilaawaya zone unbu ku mashquulaya adiga zone kan wuxuu ku caawinayaa markii trade-ka waxa uu soo analysis gareystay trade-ka aad trade line-ka soo saartay jihadiisa saxda ah soo ogaatay waxa iska eegaysaa zone ka marka aad galay sidoo kale aad rabtid kale hadii midna hadda trade kan oo kale aan ku fiirinayna trade kan waxa uu waa trade buy halka waxa uu waa meel supply ah meesha supply ah si loo tagay waxa loo tagay waa meel level key level waxa loo tagay 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 ga marka loo tagay sometimes risk entry meeshaas kale waa ka soo qaadan kartaa sometimes risk entry kama qaadanaysid marka inta marka heshay meeshaasna aragtay inay tahay meel kore oo suuq uu ku tagay supply ay tahay suuq 1 iyo 2 iyo 3 uu kugu tagay markaan weeye marka loo baahan yahay supply and demand igana iska fiirsid supply and demand lagu sheegayna markaan ku anfacaya marka supply and demand waxa u baahan tahay hadda waxaan raadinaynaa sell waxaan raadinaynaa waxa weeye supply zones baska eegayna ama waxaan ka wadaa demand zone baska eegayna maadaama suuq markuu sell u soo daadanayo sell ka raadinaysid maynas ka fiirisaa meesha waxa weeye demand zone ka oo buy-ga suuq ka aadi karo markuu suuqu uu buy aadayo halkaan oo kalena waa inaad ka fiirisaa meesha waxa weeye supply zone ka oo suuqa laga soo celin karo marka inta marka heshid waxa u baahan tahay trade-kiina analysis gareystay oo kale inaad tagtid waxa weeye 4 hour ka marka tagtid oo kale waxa fiirinaysaa entry waa raadinaysaa markaan
waxaa raadinaysaa entry marka entry markaa raadinaysa waxaa iska eegaynaa markaan sell maadaama aan raadinayno waxaan iska eegaynaa waa xaggee levelka supply-ga ah suuqan waxa weeye retracement kasoo samayn karo retracement meesha suuqa uu kasoo samayn karo waxa weeye suuq meeshaan meel adag waxay ahayd supply zone bay ahayd supply zone-ka marka suuq uu kasoo daatay waa la cunaa kor baa loo cunaa waa la jebiyey mar labaad baa lagu soo laabtay meeshii waxay noqotay demand zone bay noqotay meeshii hanka wadaa waxay noqotay waa supply-gii laakiin demand-u waxa weeye oo meesha buy-ga suuq ka aadayo weli waa supply zone-kii marka supply zone-kaas waxaan ka raadinayaa waxa weeye meeshan waxay ahayd marka hore supply bay ahayd kan waxay ka ahayd meel supply suuqa laga soo daadiyay bay ka ahayd marka waa la jebiyey waxaa la rabay in lagu soo laabto lagu soo laabtay kan rejection yar baa dhacay wuu laabtay demand bay noqotay mar labaad baa la soo jebiyey waxa isku bedeshay supply bay isku bedeshay marka adiga waxaa iska fiirinaysaa areadan meesha levelka ah ee suuqan waxa weeye laga soo gelin karo meeshaan marka waxa weeye waa level aad u adag weeye level adag oo 4 hour ah marka levelkaas marka uu suuq marayo halkaas waxa weeye risk entry wax ka qaadan kartaa laakiin risk entry sa ay uga qaadatay meeshaan waxa u baahan tahay waxa weeye xaqiijimaha area u baahan tahay xaqiijimaha area waa maxay xaqiijimaha area waxa weeye maadaama meesha ay tahay meel supply ah sidee baa waxa weeye entry ku qaadan karaa sidoo kale waxaan isweydiinayaa correctionka meesha lagu yimid laftigiisa wuxuu samaysanayaa waxa weeye demandis buu samaysanayaa suuq buy u ka aadayo kan oo kale hadda waa demandis kan oo kale waxa weeye waa demand weeye kan oo kale waa demand marka si waxa weeye halkaas aan levelkaas level waxay ku noqotay waa meel suuq waxa weeye levelka lagu sheegayo waa meel suuq waxa weeye si xawliya uga aadayo uu kaga tagayo hadda halkan kale waa meel level suuq xawli buy ka aaday markuu ku soo laabtay fiiri buy uu ka aaday haddana suuq halkan muxuu ka samaystay supply sell xawli uga soo daatay markii labaad uu ku laabtay muxuu soo daatay si xawli ah marka meel walbo suuq si xawli uga dhaqaaqo waxay noqonaysaa meel level ah hadda meeshan waa aragtaa meeshan waxa weeye waa meel waa level waa demand weeye waa meel buyers suuq waxa weeye ka gadeen ay ka gateen marka meeshaas oo kale waxay noqonaysaa meel demand ah bay noqonaysaa ama level bay noqonaysaa level waxay ku noqotay awood baa looga tegey markii lagu soo laabto meeshaas si awood la haddana looga dhaqaaqaya haddana haddii lagu soo laabto waa level adag bay noqonaysaa markay sellers tahay fiiri sellers markay tahay waa tabtoo kale meel si awoodda looga soo dhaqaaqay oo looga soo dhacay markii lagu laabto si awoodda looga soo dhacaya kadib suuqa halkan uu ku laabtay awood buu soo dhacay mar labaad buu ku laabtay si awood uga soo dhacaya halkan fiiri buy awood suuqa ka aaday uu ku soo laabtay buy kale uu aaday uu soo laabtay buy awood uu aaday mar labaad baa lagu soo laabtay marka zone-ka lagu sheegay waxa weeye waa zone ay level waxa weeye waa level suuq ama buyers ay ka gadeen ama sellers ay ka gadeen marka adiga markuu ku anfacayo waxa weeye marka suuqa aad soo analyze gareysay suuqa waxa uu soo analyze gariyay buy impulse waan soo helay inuu suuqu iisoo sameeyay impulse-ga uu iisoo sameeyay markaan soo helay kadib correction-kaasaan helay waxaan rabaa correction-ka inaan ka faa'iidaysto ogaa marka aniga maskaxiyan ahaan suuqa inuu yahay sell marka maxaan iska eegayaa waxaan iska eegayaa 4 hour ama 1 hour haddaan joogo ama 15 minute haddaan joogo meesha markaa waxa weeye supply-ga demand-ka ah oo suuqa waxa weeye buyers ay kaga jiraan baan iska eegayaa marka meeshan hadda waa maxay waa level tira link waa la ii jebiyey halkaa waa ka qaadan karay oo meesha waa ka geli karay qofkii waxa weeye dee qofkii aduur uu ka geli karaa oo marka 1 hour ka tagtay kale meesha level laga geli karo way noqon kartaa sida caadi ahaanta waxa weeye haddaa fiirsid level laga geli karo way noqon kartaa oo levelka maxaa ka fiirinaysaa levelka waxaa ka fiirinaysaa shuruudiha aan trade ku qaadan jirnay shuruudii trade-kan ku qaadan jirnay maxaa kamid ah meeshaas horta waa in fast waa in aan ka helnaa bottom waa inaan ka helnaa marka koobaad bottom waa ka heshay waa kan trailing bottom ah oo abuurmay waa ka heshay sidoo kale si caadi iyo bottom wuu ku noqonayaa caadi ah bottomkaas oo lagu jebiyey double top baa waxa weeye sidoo kale bottom waa ku jira la soo jebiyey inta markaa ka heshay waxaa iska eegaysaa dhimaan meesha buyers suuq awood uga kaxeeyeen baa iska eegaysaa meeshaas weeye adiga meesha kula degaysa meeshaas weeye meesha waxa weeye inta trailing lagu jebiyo
oo fake break oo noqota Dubai lagu aadays maxaa waxa way trailer bal iibiyay fake break adku lagu sameeyay trailer waa lagu jibiyay laakiin ma aadan sugin inta lagu jibinayo dhimaan zoonkan virusku ay sida awood leh ku haysteen waxa rabtaa aqligaaga meel virusku ay haystaan waxa weeyaan seel garis laakiin ma dhacayso waxa loo baahan yahay markii aad hubsatid meeshaas in sellers ay la wareegeen meesha zoonka in ay sellers awood ku qabsadeen maalintaas waxa weeye in aad seelka ka fikir laakiin inta ka horeysa waxa weeye wax fursado seel kama fikir karin kan aqliyan ahaan waa haysataa meesha inay tahay meel zone seel aad suuq uga soo gelisay laakiin lower time frame waa in meesha virusku ay haystaan aadan ka gelin virus aadan waxa weeye suuqa la gelin aadan ka hor imaan ee sellersku markay meesha qabsadaan aa la wareegtaa marka meesha waa la soo jibiyay si awood loo soo jibiyay waa lagu laabtay markii lagu laabtay waxa weeye ujeedaan zoonkii baa la soo jibiyay markaana caadi loo jibiyay marka mar walba waxa weeye dhalinyaro badan waa u sheegay mar walba oo zoon lagu jibiyo candleka ugu horeeya fast candleka waliga ku qaadan waa in candle labaad ka dhex baxaa zoonka haddii zoon lagu jibiyo hal candle uu ku jibiyo oo aad qaadatid oo kugu laabto muhiimadu kama dhigna waxa weeye zoonkaas khaldan zoonka badana waxa weeye zoonka marka lagu jibiyo waa in zoonka laba candle ku jibiyo haddii hal candle ku jibiyo mid asaga la agna uu laabto zoonka waxa weeye uu sii ballaaranaya zoon ballaaran ma noqonaya wali zoonkii baa lagu dhex jiraa la mid marka zoonka waxa fiican laba candle inay ku jibiyaan laba candle markay ku jibiyaan oo ka soo dhex baxaan caadi kan kale waxa weeye uu ku laabto oo test meesha uu ku sameeyo waxa weeye wax ka soo qaadan kartaa laakiin haddii lacagta waxa weeye mid kalena way jidha haddii lacagta sessionkeeda uu furan yahay subaxaas oo USD oo kale hadda ama kulli oo kale ama USD oo kale ka soo qaada ku jidha oo kale sessionkeeduna waxa weeye subaxa uu furan yahay 2 saac ay ku tahay oo lacagtu zoonka halkan dhal ay ku jibiso candleka kale oo furmaya 15 minutes inta tagtid in meesha inta lagu laabto candle laba rejection 2 week rejections ka raadin ka dhac laba candle oo 15 minutes oo rejection meesha ka sameeya ama hal candle oo rejection sameeya adiga laba candle baa ugu fiican waxa weeye hadaa keeshid wax ka soo qaadan ka dhac laakiin haddii lacagta waxa weeye sessionkeeda ay furnayn oo habeen oo kale ay tahay USD in habeenkii ma dhaqaaqdo oo zoonkii lagu soo jibiyay hal candle suuq intuu candle kala soo jibinayo kadib ka saddexaad waxa weeye tastigiisa ka qaado laakiin waa kuu sheegay haddii lacagta zoonkeeda uusan haddii lacagtaas uusan sessionkeeda furnayn oo ay zoon ku jibiso hal candle uu soo dhex baxo lacagtaas waxa weeye intii ka raadin day 1 hour tahay iyo day 4 hour tahay waa in aad ka raadisaa markii candle labaad soo dhex baxo kan saddexaad laakiin haddii lacagta sessionkeeda uu furan yahay zone ay ku jibiso ay zone ay ku jibiso hal candle uu ku jibiyo candleka labaad oo laabanaya halkii markuu testiga sameeyo waxa ka raadisaa 2 week rejection iska raadi marka trade-ka halka waa ka qaadan kartaa waa beera ka qaadan kartaa marka halka lagu jibiyo toos intaas oo dhan waa ka soo cuni kartaa laakiin 4 hour ko kale marka timaadid 4 hour ko kale aad entry ka galaysid oo kale ama 1 hour ko kale entry ka galaysid suuq waxa loo baahan yahay in aad maadaama aqliyada ku macnaha aad leedahay meeshaas waa flag oo seel ah suuq ka raadinaysid waa in waxa weeye meesha seelka waa in la soo jibiyaa meesha ma garanaysaa demand zone-ka oo buyers ay haystaan suuq waa in la soo jibiyaa suuqa markaas seel u qaadanaya suuqa seel baan ka raadinaya Soomaa yes suuqa waa in waxa weeye waa in demand zone-ka ama level-kaas 4 hour-ka ah suuqa buyga laga aadsiiyay sida awood la marka labaad loogu aadsiiyay markaas saddexaadna waa looga aadi karaa adiga ma hubtid laakiin trailing waa lagu jibiyay zone-ka inta lagu jibinayo suuq horta seel uu siinayo marka ka levelku waa intaas weey marka suuqu muxuu sameeyay halkan muxuu ka sameeyay markii aan levelkii ratasiga ka heshay waa la soo daatay mar labaad baa la soo laabtay marka waxa raasanaysaa sidoo kale level kale raasanaysaa haddana waxa weeye supply-ga levelka aan waxa weeye raasanaya waa xagee inta waa ka soo cunay marka aad inta ka soo cuntid levelka target ku noqonaya waxa weeye levelka sida awood leh marka hore suuq buyga uu aaday oo kan taasoo biiba ka cunaysaa taasoo bii markaa ka cuntid levelka suuqa ku yimid haddana waxa raasanaysaa level suuq uu ka soo daadan karo halkan waxa weeye waa level aad u adag oo suuq markii levelka uu suuq ka soo daatay waxay ku tahay zone bay ku tahay zone-ka suuq marka uu ku soo laabto maadaama zone suuq si xawliya uga soo daatay ay tahay marka labaad uu ku soo daato suuq waxa weeye sidoo kale si lamida uu uga soo daadanaya
waxaa laga yaabaa hadda xataa suuqu inuu ku laabto mar labaad haddana uu kasoo daato waxaa macquul ah haddana in meeshaas maadaama ay tahay supply la jebiyo haddii lagu soo laabto waxay la mid tahay meesha waxa weeye supplygaas waa laga adkaaday sellerski buyers baa ka adkaaday meeshii waxay isku bedelaysaa demand bay isku bedelaysaa in waxa weeye suuqii saas waxa weeye wuxuu ku aadayaa buy ku aadaya marka waxyaalaha loo baahan yahay inaad ka fikirtid waxa weeye suuqa markaad raadinaysid buy ama sell markaad raadinaysid waa in aad ka fikirtaa levelka markaas aad suuqa ka qaadanaysid ma level waxa weeye suuq buy aba mise waa level sell ama ma level supply aba mise waa level demand ah waana isweydiisaa marka lacagtan hadda halkaan markay ku laabatay meeshaas waxay noqonaysaa level adag bay noqonaysaa level maxaa ka dhigaya maadaama si awood leh suuqu sellers meesha ay soo qabsadeen oo laga adkaaday buyerskii oo ay sellers qabsadeen awood baa looga soo daadiyey marka awood markii looga soo daato markii labaad marka lagu laabto meesha maxay noqonaysaa level adag bay ku noqonaysaa kay level maadaama sellersku ay halkaa ku jireen oo si awood leh ay meesha ugu jireen waa laga soo daadanaya si qurux badan baa laga soo daadanaya haddana maxaa la yidhi level adag baa la yidhi oo buyers ah levelka buyerska ah waxa weeye waa level suuqa buyersku ay awood ay ku haysan karaan marka levelka buyerska suuqa awood ay ku haysan karaan waxaan fiirinayaa waxyaalo badan baan iska eegayaa bedelon kale haddaan gelayo waxaan fiirinayaa in la jebiyo trailinkan oo kale la jebiyo sidoo kalena zonekan adag oo waxa weeye supplyga oo sellerska suuq awood uga soo daadiyeen waa in laga cunaa oo isku bedelaa demand kadibna levelka ugu soo sokaya waxa weeye suuqa geli kara waa ilaa levelkaas noqonaya marka mar walba waxa fiican suuqa levelka ka gelisid inaad isweydiisid baa fiican lacagtan hadda lacagtan level badan ma ka soo cuntay soo kale suuqa kan waxa weeye waa ka soo cuntay maadaama halkan sina soonka ugu wareerin ba hadda soonkeena kaga qaadaya waa ku wareeraysan oo kale marka halkan trailinkan suuqan sell baan ka raadinayay halkan waxaan ka arkay inuu zone adag suuq ii joogo tasi igu sameeyay oo kale tasiga waa helay kadib tasigaas aan helay in aan suuqa ka helaa waxa weeye demand zone yarka ah 4 hour ka waa in laga cunaa waxa weeye tasigiisina waa helay tasigiisa markaan helay fast impulsive ka waa kasoo faa'iidaystay fast impulsive ka markaan kasoo faa'iidaystay oo suuq waxa weeye ii soo daatay suuq wuxuu sameeyay correction markuu sameeyay suuqu xagee buu test ku sameeyay loogi kale uu hadana jibiyay waxa weeye test ku sameeyay mar labaad markuu ku sameeyay uu soo daatay suuq markuu soo daatay level alle leh waxa la yimi level suuq buyers ay ka kaxaynayaan levelka buyers ka hadda rabto ka faa'iideysan kartid oo sababtay uga faa'iideysan kartid suuq xagga u raacaysa trailinki baa lagu jibiyay trailinki waxa suuqa waa in mar walba wax u saartaa ana 4 hour baan joogaa baa la jibiyay waa in sidoo kale la ii jibiyaa markii la ii jibiyo halkan maadaama meeshan ay tahay sellers ay tahay suuqana buy aan ka raadsanayo levelka ugu soo sokeeyo aan kaga baxayo waa levelka weey marka laakiin maadaama aan buyga u qaadanayo meesha celin ka dhaco supply-ga oo sellers suuqa ka galeen waa halka weey waa halka marka in iska ilaaliyaa soo qaadanaya zone-kayga waa dhiganaya suuqayga si qurux badan buu dhiganaya one hour kan tagayaa haddii meeshaas ku u adkaato si filtering aan si sameeyo one hour kan tagayaa ujeedaa one hour ka zone kaas uu ku noqonaya marka waa meesha inii sheegay waa kan suuqa daarta asoo imbalance sameeyay imbalance asoo u sameeyay suuq daarta in kan dalo yar oo rejection meesha ay ka dhacaan oo saa lagu tago marka lagu soo laabto meesha zone bay noqonaysaa iska ilaali saas loo baxaya bayba la aaday marka meeshii waa lagu soo laabtay meeshina waxay ku ahayd zone bay ku ahayd si qurux badan ba wax way bay looga aaday ugu yaraan 800 bb wax ka badan wax ka qaban lahayd marka haddana meeshana waxa lagu yimi sell baa lagu yimi sellka waxaan rabaa inaan kasoo faa'iideysto anoo iska dhaleedeynaa 4 hour kan tagaynaa sellka kala rabaa inaan kasoo faa'iideysto hadda dhimaanka igu dhow suuq sellers awoodda u soo galeen levelka ugu dhow waa levelka maadaama awood sellers ay ka soo dhacday maadaama awood sellers ay ka soo dhacday waa levelkaas aan dhahayaa kadib maxaan sameynayaa levelkaas trailing haddii trailing uu ku jira trailing baa saaranaya
trend line waxa la iigu yimid 1 iyo 2 iyo 3 ah trend line ka 1 iyo 2 iyo 3 markii la iigu yimid ba waxaan fiirinayaa suuqan waa xagee meesha demand zone ka ah oo buyersku ay ku jiraan sellersku waxa weeye suuqa ay u qabsadaan waa halkan waa waxa weeye waa meel demand zone oo suuqa buyerska ay ku jireen korkaasaa layla aadi karaa marka anna ma rabo in sellerska buyerska awoodda suuqa ku haya waa in la soo fatuudaa oo la soo jebiyaa meeshaas oo lagu laabtaa kadib meesha waxay isku bedelaysaa demand zone waa la soo dhacayaa kadib waxa weeye suuqu wuxuu samaysanayaa sii dhacayaa suuq marka mar walba aad qaadanaysid aad trade qaadanaysid zonka lagu sheegayo ama levelka lagu sheegayo waa intaas levelku waxa weeye meel suuqa sellers and buyers awood ay kusoo haysteen lacag kalaan fiirinaynaa insha allah dulahan lacag kalaan tusaale ku fiirinaynaa waxaan ku eegaynaa markaan GBP USD oo kala fiiri daily time frame ama weekly time frame waa isku mid waxaan fiirinayaa meesha hadda levelka suuqa laga celin kara waa xagee levelka suuqa laga celin kara waa xagee number 1 wax kala adoona samayn trade line ka soo qaado jihada suuqa fiiri jihada suuqa waa maxay jihada suuqa waxa weeye waa uptrend weli waxa lagu jira uptrend uptrend ka marka maadaama lagu jiro levelku waa xagee levelku waxa weeye suuqaas uu buyersku ay ka kaxeeyeen maadaama suuqa uptrend yahay may waa kan halkan waa level aad u adag waa level aad u adag hal level aad u adag ka dhigaya suuqan hadda uu buy uga laabtay waxa ka dhigaya suuq maadaama awood loo kaxeeyay oo ay buyers u kaxeeyeen marka labaad ee meesha lagu soo laabto si awood loo kaxeynaya ugu yaraan tii ugu yaraato waxa weeye levelka ugu soo sokeeya la keenaya in waxa weeye in la soo laabto waa macquul ama maxaa la samayn karaa in levelkaas horta waxa weeye xogaa biibs lagu siiyo fiican correction meesha lagu galo kadibna waxa weeye la sii daato suuq maadaama xogaa jihadii soo bedelanay kadibna waxa weeye suuqu sii daato meesha uu ku laabto supply-gii waxa weeye demand-kii la qono supply meesha isku bedesho kadibna waxa weeye si qurux badan loo soo daato marka adiga waxa laga rabo waxa weeye inta kaliya iska fiiri suuqa marka sellers ka fiirinaysid waxa iska fiirisaa meesha demand zone-ka ah oo buyers suuqa awoodda uga kaxeynayaan inta marka heshay trade line-kan uu ku saxan yahay war ka tagaysaa war markaa tagtid markaa waa saxan ka dhahay wala saxan ka dhigan ka dhahay kan waa demand zone-ka caadiga ah suuq baa ka aaday maadaama warkeena markaan soo saaranayno daily time frame ku noo saxsanaa kan balse uga dhacay correction ka yarka kan dhalada rejection ka saas waxa weeye buy lagu aaday lagu soo laabtay mar labaad buy laga aaday marka haddaan ku laabto weekly time frame oo kale trade line ka aan soo saxano oo kale trade line ka noo saxan yahay inaan hubino horta trade line ka of course waa noo saxan yahay daily time frame ka tag daily time frame ka just trade line ka waa noo saxan yahay supply zone kuna waa noo saxan yahay waa kan waa areadan suuqu ka aaday buy marka maxaa macquul ah in si xawliya waxa weeye marka lagu kaxeeyo maadaama meel hore loogu kaxeeyey aad ay tahay ugu yaraan intaas kale laga kaxeeyo ama maxaa macquul ah waxaa macquul ah in meeshaas ugu yaraan intaas kale lagu siiyo levelkaas adag levelkan adag la tago kadibna waxa weeye lasoo daadiyo maadaama aan moodo suuqu inuu trade asaasanayo ama samaysanayo intaa markaa levelka ogaatay war kaaga tag levelka waxaa fiirisaa qaab noocee lagu imaanaya qaab waxaa lagu imaanaya corrective lagu soo socdo qaab corrective ah 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 ga markii meesha lagu yimid ujeedaan waxaa lagu yimid qaab 1 iyo 2 iyo 3 ah 1 iyo 2 iyo 3 ga markii lagu yimid 3 ga si halka ugu helaysaa in 3 ga waa inaad samaysaa filter waa inaad samaysaa 1 hour waa inaad tagtaa 1 hour ka tagaysaa waa fiirinaysaa waxaa eegaysaa meeshan 1 hour waxaa fiirinaysaa meeshan pattern ma ka muuqdaa pattern waa muuqdaa head and shoulder ba muuqda meeshan garab iyo laba madax baa muuqda si caadiga ah
laakiin waxaa sii samayn kardhaa 15 minutes oo kala sii tegi kardhaa si caadi ah waxa weeye baatanka meesha ku jira fursadda bayga uga raadsan kardhaa see uga raadsan kardhaa waxaa uga raadsanaysaa meeshaan tire line-kaa soo qaadanaysaa labada dhan baa ka saaranaysaa labada dhan baa ka saaranaysaa labada dhan marka ka saarata waxaa samaynaysaa sidoo kale waxaa fiirinaysaa meesha ah supply zoneka suuq sellersku ay xaaraanta ku haystaan oo iska haystaan macnaha waa eegaysaa waa kan meeshii supply zoneka ahayd waxa weeye sellersku ay haysteenna waa la cuna maxaa lagu sameeyey test halkaa waxa weeye waxaa ka fiirinaysaa laba candle oo rejection ah ama hal candle oo ujeedaan laba candle oo rejection ah meesha ka dhacay halkaas waxa weeye candlekaas saddexaad baa ka qaadan lahayd hadda maxaa ku jiri lahayd waxa weeye faa'iido fiican baa ku jiri lahayd marka mar walba waxaa qurux badan in aad iska fiirisid oo kale markaad trade qaadanaysid zoonku waxa weeye waa inii sheega zoonku waa inuu kugu celinaya mar kale zoonku waxa weeye meel suuq waxa weeye buyers ay si awooda waxa weeye uga kaxeeyeen oo kale ama sellers ay si awooda uga kaxeeyeen meeshaan hadda waxa weeye waa zone macquul ay tahay suuqu inuu ku laabto waxa weeye kadib inuu kugu soo daato maadaama ay ahayd meeshaan meel ay buyers awood ku haysteen oo ahayd demand zone adag baa lasoo jebiyey in lagu laabto lasoo daato waa macquul maadaama suuqu uu jihadii bedelanayo ugu yaraan meelahan oo kale u tago inuu sii jebiyo supply dhimaysooyadan kale uu sii tago waa macquul ilaa meelahan sii gaaro waa wax macquul sida hadda suuqu uu asaasanayo oo kale marka mar walba waxaa fiican in aad ku xisaabtantid waxa weeye trade-ka intaada qaadan zoonka la joogo waa muhiim zoonka trade-ka la joogo inaad ku xisaabtantid mar walba waxa weeye aad bay muhiim u tahay tusaale kale haddaan ina siiyo oo kale lacag kalena aan ku fiirin tusaale kale ku fiirinaynaa euro USD euro USD si hadda u samayn lahayd lacagtan oo kale fast kow weekly time frame-ka tag waxaa fiirisaa waxa weeye suuqan weekly time frame-ka supply meesha jooga fiiri weekly time frame-ka suuqan waxaa laga soo celiyey meel supply ah waa weekly supply marka mar walba waxa weeye dad isku khalda arkaysaa waxa weeye levelka waxa weeye levelkan hadda waa level weekly ah waxaa jira level daily ah baa jira waxaa jira level daily levelka dailyga waa maxay daily time frame-ka tag daily time frame-ka haddaad tagtid oo kale hadda levelkan oo kale daily level buu noqonayaa kan oo kale wuxuu noqonayaa daily level buu noqonayaa kan oo kale marka mar walba daily levelka iyo waxa weeye inaad isku khaldin baa fiican iyo levelada kale marka waxaan soo helay weekly level baan soo helay weekly levelka 4 hour-kan tegayaa meeshii waxa weeye qaab noocee ayaa lagu tegay baan dhahayaa waxaa lagu tegay 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 ga lama dhamaystirin taas si fiican u sii fiiris 1 iyo 2 iyo 3 gaas lama dhamaystirin oo waa maxay ujeedaan 1 iyo 2 baa la tegay 1 iyo 2 ga markii meesha la tegay anigu waxaan rabaa waxa weeye inaan janiskaas aan ka soo faa'iidaystaan rabaa janiska marka see baan uga faa'iidaysan karaa janiskaas see baan uga faa'iidaysan karaa way su-aashu janiska waxaan uga faa'iidaysanayaa tiriga lama gaarin inaan ka faa'iidaysto fursaddaasna waan rabaa marka zoonkan shaqadiisii waa qabsaday asaga iska dhaliidmo waxaan uga faa'iidaysan karaa meeshan wax kale maaha kow waxaan fiirinayaa waa xaggee meesha dhimaan zoonka ah oo iga celin kadha waxa weye lacagta inaan seel u galo waa inaan su-aasha isweydiiyaa levelkan weye meeshan oo ah levelkan weye levelkan marka maxay ku noqotay sababtay ku noqotay waa maxay meeshaas in suuqa laga helaaliyo maxaa yeelay waxay ku noqotay wax kale ma aha meeshan buyers baa suuqa ku jiray awoodda markii la keenaba meesha xoog baa looga kacay markii la keenaba ugu yaraan xoogaa waxtaa laga kaca markaan markii dambe waa lasoo jebiyey aniga marka levelkii igu adkaa waa la jebiyey marka levelka maxaan rabaa ugu yaraan 2 candle inay ka dhex baxaan ugu yaraan 2 candle waa ka dhex baxday
kadibna waa lagu soo laabtay kadib markii lagu soo laabtay seebaan intriga meesha uga heli lahaa anagoo isticmaalayna istiraatiijiyadana waxa weeye MSD marka structure waxa weeye Wilsoniska marka structure waxa weeye Wilsonis anagoo isticmaalayna waxaan sameynaynaa anagoo isticmaalayna istiraatiijiyadana waxa weeye MS set marka structure Wilsonis waxaan sameynaynaa waxa weeye levelka waa in la soo kala hirgelaya levelka waa la kala hirgelaya testina waa hesha testiga marka maadaama kanaladan ay yihiin badanaa marka waxa dhacda weligaa retesti haddaa gelaysid waxaa la sameeyaa retesti marka lacagtu ay soo dhacdo oo kale haddaa aragtay waxa weeye retesti lacag meeshii retestiga laga rabay inay saa ku tagto oo kale qaab noocaan oo kale ku tagto hadday rabto waxa weeye tay halkan ka laabato impulsive correction impulsive ha ku tagto waa caadi laakiin weligaa waxyaalaha la iska ilaaliyo waxaa kamid ah weligaa lacag intay meel kuusoo jebisay haddaa aragtay marka loo soo socdo meeshii in waxa weeye la samaystay oo kale pattern oo kale head and shoulder oo kale meeshiina la yimid reerkaas oo kale iska ilaali waxa macquul ah in technical anchor lagu sameeyo retesti lagu jabiyo hadhowna waxa weeye stop loss lagaaga dhaco markaas oo kale waxaa la sameeyaa maxay ahayd trade baa soo dhacay w samaysanaya oo kugu laabanaya meeshuu tagayaa correction buu galayaa uu sii jibinaya adigana marka waxaa leedahay maxaa adhow iga khaldanaa meesha marka la imaanayo waa in qaab correction lagu yimaadaa ugu yaraan haddaan lagu imaanayn correction حتى aggressive waa lagu imaan karaa waa caadi wax dhibaataa male sidoo kale waa lagu imaan karaa qaab impulsive correction impulsive oo lagu imaan karaa laakiin meesha haddaa aragtay in pattern lagu yimid oo ah talas meesha la yimid head and shoulder in la samaystay oo kale pattern la samaystay oo wax yar baa la soo dhacaya oo lagu laaban karaa marka I hope inaad waxa weeye aad asagana iska ilaalisaan oo kale waxyaalaha ugu dhibka badan bay kamid tahay marka halka marka ka heshay kale retestiga ka heshay retestiga sida u galaya marka waa inaan ka helaa ugu yaraan 2 week rejections waa inaan ka helaa ama waa inaan sameeyaa filtering 15 minutes waa inaan tagaa 15 minutes ka markaan tago maxaan ka raadinayaa 15 minutes ka waxaan ka raadinayaa pattern baan raadinayaa pattern suuqaas aan waxa weeye ku soo galo aan si lagu soo galaan raadinayaa pattern suuqaas aan si lagu soo galo aan waxa weeye insha Allah raadinayaa maadaama meesha qaab aggressive lagu yimid aggressive kaasna waxa weeye suuq mar walba wuxuu igu samaysan karaa flag meesha uu sii jibin karaa wuxuu samaysan karaa flag san oo kala meesha uu sii jibin karaa marka waxa loo baahan yahay suuq markuu meeshii waxa weeye yimaado oo kale in aad pattern ka raadisid maadaama aggressive uu ku yimid oo kale intuu correction ku yimaadana kaba sii fiicanba marka ma hadda patternka uu ku yimid maxaa u jeedaa inay tahay pattern ascending qurux badan inuu yahay ascending runtii aad u qurux badan inuu yahay ascendingka markiisa lagu jibiyo waa geli kadhaa hadda aragtina waxaa samayn kadhaa 15 minutes ka levelka si fiirin kadhaa xataa oo ah levelkan aniga ma warrabo inaan qasaarabo wax yar oo xataa dirow dhoon inaan arko maadaama buyerskan waa level meeshan levelku kaliya maaha 4 hour ka daily iyo weekly 15 minutes ka 5 minutes ka iyo 1 minute ka wuxuu noqon karaa level samayn kara suuq marka levelka maadaama ay tahay demand suuqu laba jeer bay ka aaday meeshan bal harta la kaliya galay hadii kala saana ugu dhacays pattern waxa uu noqonayaa waxaan dheer marka waa la isoo jibiyay demandkan waxa la ii samaystay supply baa la ii sameeyay waa la ii jibiyay waa aragtaa fiiri halkan dal samarka lagu laabtay si qurux badan oo sharaf la looga soo daatay inta waxa weeye kadibna waxa weeye fursada qurux badan marka faa'iideysan lahayd marka muhiimadu waxa weeye zonku marka levelka zonka hawmay levelka zonka waxa weeye waa in sheegay waa meel suuqa looga kaxeeyay si aad looga soo daadiyay level waxa noqon kara suuqu intuu soo xir soo dhaco laba kan dhalo kale ama halkan dhalo kale rejection intuu sameeyo daadanaya meeshii marka lagu soo laabto waxay noqonaysaa level maadaama ay tahay level suuq aad uga daatay ay tahay suuq waxa weeye uu sii daadanaya markaas taasoo kale waxa ku cadeynaya tan oo kale ku cadeynaya waa kan waa level waxay ku noqotay suuq imbalance ku sameeyay candle rejection uu sameeyay oo sell laba candle oo sell in xawli baa looga dhaqaaqay waa lagu soo laabtay xawli baa looga dhaqaaqay marka meel walba waxa weeye virus si awood uga dhaqaaqaan ama sell risk
meesha waxay ku tahay level bay ku tahay meeshaas waxay ku tahay level bay ku tahay marka halkaan oo kale fiiri halkaan oo kale suuqu waxa weeye laba candle oo nasina uu sameeyey imbalance baa soo dhacay hal candle oo rejection uu sameeyey wuu soo dhacay meel awood looga soo dhacay ahayd waa lagu soo laabtay si awood haddana looga soo daatay marka levelka lagu sheegayo waa intaas levelka lagu sheegayo waa intaas hadda USD oo kale asbuuci dhaweyto qofkii ka faa'iidaystay oo kale USD Hilton frame ka hadaan tagno oo kale anigu lacagta waxaan ka sugaynaa halka inay noo tagto inuu maysan gaarin laakiin halkan inay noo tagto un maga sugaynay meeshaas retest ay nagu samayso laakiin maysa dhicin xagee retest ay ku samaysay meeshii caadiga ahayd ee saxda ahayd bay retest ku samaysay meeshii saxda ahayd maadaama waxa weeye meeshaan ay ahayd demand zone suuq awood uga dhaqaaqay waa la jibiyey meeshii dib baa loo soo jibiyey waa lagu laabtay waa laga soo daatay lacagta marka waxaan bay uga raadin khalad bay ahayd laakiin anagu maadaama halka imbalance uu ku jiray correction yar uu ku jiray imbalance kalaan sugaynay oo kale waxaan islahayn demand zone-kan kale oo ka koreeya demand zone-kan kale oo ka koreeya waxa weeye laga soo daadinaya adiga areadan baa laga soo daadin karaa waa islahayn maadaama sababta u lahayna waxa weeye aan filtering kusii samayn karno aan sii tegi karno marka 4 hour kale haddaan tagno aqliyad ahaan meeshan waxaa ka muuqatay impulsive correction impulsive kale suuqa ugu yaraan inuu flagga dhammaystirayo 1 ga usoo sameynayo baa noo muuqatay annaga weliba halkaas waxa weeye dhalinyarada kala wadaagana waxaan ka baygaraya halkan waxa weeye lacagta waxay noo dhaqaaqday USD 109 bib adiga iska 100 bib bay noo dhaqaaqday marka 100 bib kadib qofkii waxa weeye wuxuu iskala baxay 100 bib waa TB1 qofkii wuxuu iskala baxay alxamdulillah laakiin waxaan goobaynay baatan noocan oo kale ah baatan noocan oo kale ah 1 iyo 2 iyo 3 ah laakiin ma aysan marka see uga faa'iideysan karnaa markaas oo kale seelkaas maadaama bayga aan lagu gaarin waxaan sugayaa meeshaas weligay may waxaan sugayaa demand zone-kan suuqa lagala dirirayo suuqa waa in la ii kala gareeyaa laba candle la iga dhex baxaan waan ii kala gareeyay laba candle waa iga dhex baxaan taasoo kalena waxa weeye 100 bib baan ka qabsan lahaa thank god 100 bib baan qofkii galay uu ka qabsaday marka si halka waan sugayay in la ii tago laakiin suuqu waa ii tagi waayay uu ixtiraami waayay dhimaankii uu bayga ka aaday oo suuqu ixtiraamay hore uu ixtiraamay uu dib isu jibiyey laba candle waa kasoo dhex baxay weliba London session bay ku beegneyd baan filayaa markaan subaxnimo oo kale ahayd suuqu markaan oo kale dee subaxii oo kale waa lacagta markay furan tahay subax waa caadi markaan oo kale halkan duu ka dhex baxo ama laba candle ka faa'iideysan karnaa marka lacagtan hadda waxa ii muuqata sidoo kale zone kala ii muuqata supply zone waa meelahan oo kale waa supply zone waxay ku noqdeen supply zone ay supply zone yara laakiin waa supply zone macquul ah suuqu macquul inuu ku laabto waxa weeye ka soo daato ku laabto ka soo daato mid kale mid baa inii sheegaya badanaa suuqa markaa trade gareynaysid suuqa matan wuxuu ku jiraa trailing musana ku jiraa trailing down train ku jiraa trailing-ka down train-ka uu suuqa ku jiro ka soo qaad channel-kan uu ku jiraa suuqu channel-ka noocan oo kale ah suuqu ku jiraa waxaan kala dardaarmayaa mararka qaarkood maxaa dhaca mataqaana jaaniska koowaad markaa ka faa'iidaysatid jaaniska koowaad suuqu markii waxa weeye jaaniska koowaad oo tan ibana xaggaan oo kale ah testiga koowaad markaa ka faa'iidaysatid suuqu oo testiga koowaad kuu sameeyo testiga koowaad noocan oo kale markuu kuu sameeyo in waxa weeye suuqu uu bay aado testiga labaadna waa testiga koowaad waa the highest probability kan labaadna isna waxa weeye waa probability fiican oo high probability ah marka markuu jaaniska la testiga labaadna kuu sameeyo testiga labaad aad ka faa'iidaysatid testiga labaadna aad ka cuntaysid uu suuqu ku siiyo testiga saddexaad suuqa ha khasbin waxyaalaha inta badan dadka waxa weeye dhibaateeyay ka mid
suuqu markuu saas quruxda badan kugu dhaqaaqo labada chance ugu macaan u ku siiyo chance kale maxaa sugaysaa chance kale waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo meeshaan uu test ugu sameynaya suuq marka qaarkood way dhacdaa inuu uu test kugu sameeyo laakiin suuq markaan oo kale waxa weeye iska daba wareeg oo kale u galaa labada chance ugu horeysa ka faa'iideyso labada chance ugu horeeya waa ka faa'iideysan karaa markaan muxuu galayaa marka iska daba wareeg galayaa iska daba wareeg galayaa waxaa macquula in supply zone ugu horeeya marka ugu horeeya kasoo dhaqaaqay inuu ku laabtaa dhici karta waxa weeye kadib saabaa ku soo aado labada chance ugu horeeya mar walba trade ka cun chance-ka waxa weeye dambana iska daa hadda tusaale waa ina siin karaa tusaale waa ina siin karaa hadda tusaale waa ina siin karaa waxa weeye waa kan trade-ka chance koowaad waa kan kan hadda fiiri suuqan loan trade-ka chance koowaad si qurux badan baa waqaysaa chance koowaad waa kan si fiican baa waqaysaa chance-ka labaadna fiiri chance-ka koowaad markaa ka cuntid chance-ka labaadna fiiri zone-kii buu test kugu sameeyey account zone-kan waxay zone ku noqotay waa supply zone suuqa aad looga soo daadiyey waa tan meel supply zone ah oo suuqa laga soo daadiyey isna chance-kii labaadna waa ka cuntay chance-kii labaad markaa ka cuntay weliba head and shoulder bay ahayd shan waxay ahayd head and shoulder test lagugu sameeyey chance-ka koowaad waa kasoo cuntiyey waa lagu laabtay laga soo daatay mar labaad baa supply-ga hadda la samaystay waa lagu laabtay laga soo daatay chance-ka saddexaad marka waxa dhacay fiiri chance-ka saddexaad maxaa dhacay chance-ka saddexaad waa lagu laabtay laakiin lama ixtiraamin zone-kii caadiga ahaa zone-kii caadiga ahaa oo kan ahaa lama ixtiraamin waxaan rabnay in la ixtiraamo zone-kan maadaama zone adag u ahaa laakiin lama ixtiraamin suuq waxa weeye muus ixtiraamin suuq intuu ku laabtay oo jabiyey oo kusoo laabtay oo korka aaday ku laabtay suuq waxay ku laabtay zone-kii ugu horreeyay supply-gii ugu horreeyay ku laabtay marka adiga mar walba trade like marka lagu soo jabiyo chance-ka koowaad ka cuntay chance-ka labaadna ka cuntay chance-ka saddexaadna suuq price-ku intuu waxa weeye is develop gareynayo oo pattern qurux badan ama wax large flag oo kale ku sameynayo kadibna ka soo cuntay asaga laftigiisa chance-ka koowaad chance-ka labaadna waxa weeye ka soo cuntay oo waaba kan chance-ka labaad waaba ka soo cuntay nin qofka ka soo cuntay chance-ka saddexaad marka muxuu sameynayaa halkaan aan dhigan lahayd chance-ka saddexaad haddaba waa lagu jibinayaa chance-ka saddexaad chance-ka koowaad waa ka soo cuntays ka labaadna waxa weeye waa ka soo cuntays chance-kan saddexaad halka laga yaabaa in lagugu laabto oo laga soo daato laakiin chance-ka saddexaad maxay u badan tahay chance-ka saddexaad mar walba high risk weeye maxaa la sameynayaa waa lagugu laabanayaa caadi flag baa meelaha lagu geliyaa baa lagu sii aadi karaa kadib meeshii u horreysay baa lagu laaban karaa ama halkan oo kale lagu laaban karaa marka labada chance ugu horreysay weligaa indhaha ku hay chance-ka saddexaadna waxa weeye aad iska ilaali taas kalbin ku sameynaysa waa caadi marka levels intaas aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo insha allah waxa weeye اسبوعان waxaan leeyahay active iska dhigtay asbuucan inta badan asbuucan iyo asbuuci ka horeeyayba xogaa mashquul badan baa iska galay waxa weeye arrimaha kala asiga mashquulay trading-ka waxa weeye aad uma gelgelin oo mataqaana wax ma soo trade gareynayn arrimaha mashquuliya waxa weeye safar yar baa iska jirjiray marka saaxiib yar waxa weeye insha Allah waxa weeye wixii ma garanaysaa wixii aad si leedihiin oo kale waa loo baahan yahay oo kale asbuucan active baan aad u ahaa insha Allah marka barnaamij waxa weeye casharka u baahantiin oo kale inaan kasoo hadlo haduu ilaahay ma ila soo wadaagi kartaan insha Allah waxyaalaha loo baahan yahay oo kale levels kale aad baa loogu baahnaa waa inay sharxay meesha suuq waxa weeye awoodda uga dhaqaaqo oo kale weeye ama sellers ay suuq aad uga soo galaan ama buyers ay kasoo galaan halkaan oo kale u jeedaan level sellers awood kasoo baxeen buu ahaa oo lagu soo laabtay mar labaad laga soo dhaqaaqay markaa suuqa rabtid intriga inaad ka heshid oo kale waa in suuqu intriga markuu ku siinayo oo kale saan oo kale intriga markuu ku siinayo oo kale suuq waa in intriga markaa helisid intriga aad ku sababaysaa in demand zone-ka waxa weeye uu suuqu uu demand zone-ka diido oo jabiyo demand zone-ka oo jeeda waa la jabiyo waa la soo cunay chance-ka labaad intriga labaad inuu faa'iido fiican leeyahay oo kale aad looga faa'iidaysto chance-ka saddexaad laakiin waa aad u halis badan yahay oo ay dhacdo oo kale in saanta lagu laabto in lagu soo dhacayo kadibna lagu laabto
labada chance ugu horeysa waa the highest probability insha Allah guys channel subscribe noo saara asxaabtaadana u share garay insha Allah hadduu ilaahay idmo arjeeniyana wax badan ka faa'iideen insha Allah casharka soo socdana hadduu ilaahay idmo wuxuu noqon doonaa mid waxyaalo badan waxa weeye aan kusoo bandhigi doono insha Allah hadduu ilaahay idmo aad baan islaamaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh